annagu muslim khaaso daacadahaanu nahay dalalka Afrika hadowlahadi kamid ahaanu nahay caalamka tawxiidkii baa dusha kaga qoran wadahadadu diinta cad baynaho baran dastuurkana diinta islaamka lagu dejiyay eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdegaysi annaga madaxdaha cadaha dalkanaho xukunta wasiirada halayaha xilka loo igmaday barlaamana dooranaha kursinaho fadhiya golaha guurtidu dadahal baynagu jiraan dastuur cadaha halayaha dalka lagu dhaqaa dimuqraadidaha cadayhi dadku muujiyeen eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdeg ugu deeq dadkaygu dayrkii nabadahay daacaduhu dhisteen dastuurkiyo dahawladayhi qadarihinayaan wadagaaliyo dahaydabayhi wada dahayriyeen dalkaha dhismihiisa tartahan bay ugu jiraan dintana sidaha cadayhi ugu wada dhaqmaan daayartu qabiiliyo qorayhi iska wada duwan duruustiyo qahalinkayhi ku dadahalayaan eedaa inuu dalkayga ixtiraaf degdegaysi anigu dal shisheeye marna habo uma duleen diyaarad marraaceen oo dollarka ma baxsheen dayaartiyo duhurustihi mandaca hal mareen dalahalka carbeed martihi maanta kuma noqdeen ee dalkaygan darajiyo deequ heli lahaa haddii Somaliland ixtiraafka la siin lahaa haddii Somaliland ixtiraafka la siin lahaa anigu burtadaha la dalxiisi baan ku tagi lahaa odowgii shiikhaya dashahadan shahoon lahaa dabaqyadii Hargeysa ayaan ku dekahayn lahaa odoxadii togdheerayahan derma dhigan lahaa oo beerihiisanagayahan soo dhawaahan lahaa dusha boorame dalxiis baan ku tagi lahaa gacalka laascaanoodayaan soo salaami lahaa kalluunka sahaylacyahal baan dalbahan lahaa badwahaynta barbarada bahashadan baran lahaa dalkaygo idil damashahad baan ku mari lahaa eedaa inuu Somaliland ixtiraafka sii